Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan. Akhyaarta sharafta badan ee nagu xiran waa mar kale iyo saaxiibkiin oo idin leh tabcada tanaada. Qodobkeena maanta wuxuu daaran yahay barnaamij aan horey uga soo hadalnay in bal maanta aan hal mar aan muraajaco aan ku sameyno dul istaagno chickenka iyo ama doorada aas-aaskeeda meesha uu kasoo bilowdo ilaa iyo heerkeeda gabagabada ay ku dhamaato oo natiijadeeda saxda la helo. Inta aan mawduuca noo sii furfurin, marka hore waxaan ku leeyahay haddii aad inala joogtay waad ku mahadsan tahay la jirkaaga. Haddii aad nagu cusub tahana waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe noo dhahdo, like-tan mar walba waa inoo dhiirigelin. Haddii aad inoo heshid wax talo ama dhiirigelin kale oo aad ama qodobo kale ama casharo kale oo danaynaysa inaan kasoo hadalnana commentiga noogu rab insha Allah. Haddii aan guda galno, sidaa ujeedaan hadda waxaa meeshaan horteena ka muuqdo ukumo hadda lasoo fiiqay ama hadda fiiqmay. Ilmaha yar meesha ku jiro oo marna crate-ka lagu soo riday, marna maxay ahayd aad ujeedaan qofba si ayuu u yaqaanaa, qolana jiiq ayay dhahdaa, qolana jiljil ayay dhahaan. Laakiin muhiimadda haddii laga raaco waa un digaaga marka ugu horeyso adduunyada u imaanayo sida noocan ayuu ku imaadaa, waana nursery-gii oo maogtahay aas-aaskeeda meesha uu kasoo bilowda ayaa halkaana. Marka inta naftirkeeda labo qodob ayaa jirto. Waa maro ayadoo saan ah oo inta lasoo diyaariyey ukumihii mashiino incubator la dhaha ayaa jiro. Incubator-kaas in la geliyo ay dad waqti soo geliyaan, ukumihii soo gadaan, incubator-ka ay soo gataan, waqti ay geliyaan ay control-aan ilaa iyo ukumihii ay kasoo dilaacaan. Marka ay soo dilaacaan almost horta ukunta waxay ku dilaacdaa 21 days. Kadibna waxa waaye ilmihii ayaa kasoo baxaayo. Qodobkaas oo soo noqon doona hadda shabagan idin muuqdo waxaa la dhahaa chicken cage. Chicken cage-kan oo ujeedaan digaag ayaa ku dhex jiro. Waa ka xumahay maadaama uu hoos u jiifo, kor u jooji waa arki doontaa sida uu yahay. Chickenka markii ay soo weynaato halkaas ayay ugu xanaanaan doonaa. Faahfaahinta dib ayaan kaa siin doonaa. Marka jiilka marka lasoo fiiqo ama jiiqa ujeedaan soo crate ku jiro, kadibna hadhow markaa soo iibsanaysid box-kaas ayaa lagugu soo ridi doonaa, mana kaa bakti doono ilaa aad ka tagtid goobtii aad ugu talgashay oo rabtay inaad ku xanaaneysatid. Maxaa yeelay box-kaas dooleelo badan ayuu leeyahay. Tiradaa doonto ayaa soo iibsanaysaa ayagoo saan u yaryar, kadibna waxaa geynaysaa goobtii xanaanada ee aad ugu talgashay ee rabtay inaad ku xanaaneysatid. Casharo hore aan u bixinayna waan kaga hadalnay meesha aad markaa doorada ama digaagtan aad ku xanaaneynaysid waxay u baahan tahay inaad marka hore aad ka baaraan degtid dhul nadiif ah oo cayayaan lahayn, si digaaguna uusan ciidda ama wasaqda ama saxarada uu saxarada naftirkeeda uusan dhib u geysanin. Waxaa la sameeyaa xashka oo alwaaxda laga kasoo baxo ama qolooyinkan sameeya sariirta iyo kuraasta oo kale, qoryaha xashka oo kasoo haray alwaaxda ay isticmaaleen ayaa dhulka loo goglaa. Kadib ayaa mataqaanaa lagu sii daayaa haddii aadan haysanin markaas chicken cage-ga. Markuu saa u yaryahay chicken cage ma gali karo oo aad ayuu u yaryahay. Chicken cage-ka waxaa la geliyaa marka ay soo korto. Adiga markuu saan yahay waxaa jirto xarumo lagu iibiyo asagoo saan kareedyo ugu jiro ayaa u tagaysaa. Tirada aad rabto oo dharkaaga dhiibanaya waa lagaa tirinaa, waxaa lagugu soo ridaa box-kaas oo dhinacyada ka duleeshan. Kadib ayaad u qaadi doontaa meeshii aad rabtay inaad ku xanaaneysatid. Midda muhiimka ah waxay tahay oon cashirkan hadda dib ugu soo celinay inaad isweydiinaysaa marka qaar haddii aniga aan haysan incubator-ka oo kale sidee ku heli karaa digaagii oo yaryar ah. Marka
laga yaabo meesha aad joogtid in laga heli karo digaagan isagoo diyaarsan la gadayo. Marka midkaan hadda almost waa one day xaaloo kale la fiiqay maantana waa la iibgeynaa ma fahamtay dollar iyo bar waxaasaa la gadaa wuxuu saa u yaryaryahay halka xabo. Marka tirada aad rabtid aad soo qabsanaysaa markaad soo qaadatid oo meesha aad keentid waxaa jiro feeds ama feed loogu talagalay cunno oo ayaga u gooni ah ayaa jirto oo daweysan oo kaale araga. Waxaa kaloo jiro xataa digaaga markuu saa u yaryahay waa la talaalaa. Waxaa kaloo jiro daweyn nafaqa oo la siiyo oo ama cunnada loogu dhex daro ama mataqaana biyaha loo raaciyo. Digaagaaga ama chicken-kaaga wuxuu noqon doonaa mid oo perfect ah oo runtii quality-giisu aad u fiican yahay. Marka dadka oo chicken farmer-ka danaynaya ama raba in had kadib ay kusoo biiraan waxaan leeyahay horta wadiiqadan ayaa loo soo maraa. Marka horkan aad soo martid oo aad soo barbaaraysid mataqaana uu qaato ugu yaraan 2 bilood 3 bilood chicken-kaaga wuxuu noqon doonaa mid quality leh oo banaanka yaalo. Waa maro waxaad arki doontaa kuna raaxaysan doontaa waxqabadkaaga heerka uu gaaray oo farxad ayaa dareemaysaa. Mana ahan shaqo walba oo la qabanayo marka ugu horeyso ee cagta aad saartid inaad hore lacag kala siisid ma aha. Laakiin muhiimadda waxay tahay shaqada aad qabanaysid ama camalka aad sameynaysid marka ugu horeeyo inaad u dhabar adeegtid. It means maamaha iska waxaa jirto oo qaab daran oo marka qaar aan dadka ku turtuuro. Haddii aad caawa soo guursatid gabar guriga aad keensatid waaga hadduu baryo macquul maaha ciyal inay kuu dhasho. Laakiin runtii waa suurtagal. Marka haddii business aad bilowdo kama dhigna caawan bilaabay berina waa inuu successful noqdaa oo soconayso. So marka muhiimadda haddii aan kusii socono waxay tahay markii aad chicken-kaaga aad uu ka helo sidii uu rabay daryeelkiisii uu isku hagaago akhiiran wuxuu imaan doonaa inuu heerkan soo gaaro markuu dhowr bilood gaaro isagoo waaweyn. Kadibna wuxuu bilaabi doonaa inuu soo saaro ukumihii. Marka waxyaabaha ugu horeeya ka faa'iidaysiga waxay tahay marka ugu horeysaba in ukumahaas uu ku bilaabo ukumaha markaad muddo wadid oo muddo uu ku dhaldhalo ilan fiiri group aa loo kala qaadaa. Okay hadda 500 ayaa kicisay 500 dhalmay bilaabeen. 500 markay dhalaan ugu yaraan adiga 6 bilood ama 8 bilood oo kale markay sii marayaan 500 kale ama 1000 kale soo kicinay haddana oo soo baxnaaninay. Marka 500 ee hore ku imaanay waxaa sameynay waa qale waa diyaarinay hilibkiisa gadaysaa marka waa baceynay si fiican u habeynaysaa waa baceynaysaa ama asigoo bac aadan gelinin ayaad freezer aad ku xareynaysaa hilibkii oo qabooba ayaad suuqa geysanaysaa marketkiisana dhulka ma dhaco aad buu qurux badan yahay. Marka adiga 5 bilood waxaa haystaa digaag waaweyn oo haddaa rabtidna caadi u gadi kartid haddaa rabtidna ukumaha aad baalal ka soo saaran kartid. Marka 500 oo digaag haddii ku soo istaagto maalin walbana ay ku dhalayaan maalin walba 500 oo ukun waaye waana dareemi kartaa waa quantity aad u fiican waaye. Marka 500 bilow fiican ayay ku noqon kartaa. Calculator qaado hashi ukun xaafadaada waxay ka joogto ama maxaan ku dhahaa halka crate wuxuu ka joogo 30 xabaa ku jirto crate-ki hadduu $4 yahay ama hadduu $5 yahay u qaybi 30kaas haddana calaa xabo waxaad ku dhufataa 500 oo piece inta ku soo baxaysa feeri iyo inta kale uu ku noqon doono. Marka waa shaqo qarsoon waana faa'iido la dhahayo macnaheeda la dhaho markay afafka hoose la iskula hadlo doqon magarataa la dhahaa. Maxaa yeelay dadku waxay yiraahdeen inta badan ganacsi weyn iyo hanti badan la geliyo lagu rafaado kan ma jirto. Waa ujeedaa hadda dooradan meesha ay ku jirto waa guri dhexdiisa compound yar loo diyaariyay
hoosaa loo soo xiray oo alwaax lagu soo wareejiyey, shabaqeeda loo taagay, kor laamiyeeriyaa loo saaray. Wabilaahi tawfiiq. Cayaan uma soo galaayo, bahal uma soo galaayo, koraa kala soconaa dhaqdhaqaaqeeda. Waa kaa chicken-kaaga wuu ku dhaldhalayaa, maalinba 500 xabo ukun kasoo xaaq, suuqa hore kasii geyso, lacag fara badan aad ka helaysaa. Marka muhiimada kaliya waxay tahay adigana waa inaad ku dadaashaa caafimaadkeeda iyo cunno isku dheelitiran oo wanaagsan waa inaad siisaa. Marka fursadan mar walba waan ku soo celcelin doonaa hadduu Ilaahay idmo. Jiilka soo koray iyo kuwa soo koraya iyo inta hadda maxaan ku dhahayay dhalinyarada cuslaatay oo hablo leh oo wiilal leh oo shaqooyinkii magaaladan ay kusoo adkaatay, inta badan waa iska ogtihiin wadanka shaqo ma jirto. Hadday jirtana waa graduation wixii la dhihi jiray, ama in adeer ama afaar qabiil. Adoo shahaadadaada haysta ayaadan shaqo helayn, adoo aqoon leh ayaadan shaqo helayn, even adoo oo xoogsada ahoo ayaa xoogaaga xataa wax ku heli karin. Laakiin kan cidina kuguma kontroosho, gurigaaga dhexdiisa ka samayso, si degan lacag ku samee ayadoo dadka kale aysan ku dareemin xataa. Marka mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxaa idinku dhiirigelinayaa barnaamijkan ama mashruucan chicken farm-ka ah inaad aad iyo aad ugu feejignaataan, indhaha aad ku waxaysaan. Waana laga lib keeni karaa si fudud oo aad iyo aad u fudud. Marka sanad gudihiisa ayaad lacag fiican ku tabci doontaan. Marka waxaa idin leeyahay ficilkan in loogu daydo oo tilaabo la qaado, oo cashirkan inta wax ka fahamtiin, wax ka baratiin, wax kala baxdiin, oo waxaan rabaa aad tirahdaan maasha Allah taladaadii iyo tusaalihii aadna siisay waa ku guuleysanay, successful uu noqday. Marka saas ayaa isku ognahay, mar walba waa la is dhiirigeliyaa, iskaashato ma kufto, hadday kuftana ma jabto. Balanteenu waa tabcada tanaado. Marka tabcade ayaa tanaado waayo. Qofka hadduu tabcado wuu tanaadayaa, iswarsi male. Dowladda wax ka rabin, hay-ada wax ka rabin, cid kale wax ka rabin. Baryada Ilaahay iyo xoogaaga istus. Hawsha halkaas ku idashahay. Dowladan waaweyn oo meeshaan leeg ayaad soo saari doontaa. Maxay kula tahay adoo digaagan uu kuu joogo 1000 xabo oo bahashaan haddii ay kuu joogto, walaalo maadaa faqiira, xoolahaaga zaka laga rabaa. Yaa xoolahaaga ayaa zaka laga rabaa. Marka xoolahana kaliya ma ahan geel iyo lo iyo ari iyo kaliya ma aha meesha laga fiiriyo ma aha. Bahashaan waa xoolo, waa la dhaqdaa, adduunyada dhan baa laga dhaqdaa, muslim iyo gaal way dhaqdaan. Ukunta guri aan laga cunayn ma leh. Chicken-ka hilibkiisana guri aan laga isticmaalayn ma leh. Maqaayadaha haddaad tagto waa wax dalab dhacaya waa yaabaysaa. Meelaha chipsiga lagu cuno kale hawl kale kama socoto. Chips ninkii qaato waa inuu cad digaaga uu ku darsadaa. Marka waa cuno fiican. Ukunta sidoo kale ninkii dubanaya, ninkii biyo ku fursanaya, sidii aad iyo aad waxaa isticmaala hadda dadka oo gym-ka qaado kale. Waa ujeedaan dhiiqan asaga naftirkiisaba gym qaadaa leedahay meeshuu dhan yahay feerihiisa. Marka haddii aad waxaan oo kale aad runtii focus ka saarto, xooga aad gelisid, maxaan ku dhahay cunadooda aad muhiim u ah iyo biyo ay cabayaan. Weelasha biyaha lagu siinaayana mar walba waa inay ahaadaan weelal nadiif ah oo aad iyo aad loo clean gareeyay. Intaa kadib waxaa ku talagalaysaa waxaas ukumana beertaada inay soo daataan. Hadhowda kala gurtid ukunta mid weyn iyo mid yar aa jirto. Mid waaweyn qiimaheeda waa gooni, mid yar qiimaheedana waa gooni. Ukumaha inaad kala saartid, kareedkooda aad ku cabeysid, ma fahamtid. Markaasaad leedahay haye yaa lacag haysto, fadhigaagaa lagugu imaanaa. Waa marka horeysa oo kaliya inaad suuqa gashid. Mar haddaad suuqa gashid, ukumahaaga kareedkan aa ujeedaan ayaa ku xaabinaysaa, adigoo saa isku dul saarna lagugu imaanaa. Hada wabillahi tawfiiq, waa lagu kala baxay magaalada. Marka waa mahadsantihiin wiilal iyo gabdho, aad iyo aad full respect ayaan idin leeyahay. Channel-ku tayadiisu ma xuma, wuu socdaa, meel fiican aad gaarsiiseen. Waan rajeynayaa gacanta inaad saartaan mar kale oo dhaqaaq fiican loo sameeyo. Hadda 10,500 ayaan barbaryootin ugu jirnaa. Ugu yar xataa 11 nagu tuura intaan
ka gudbeyno 12, 13, 15 ku tagi doonaa viewskeenana waa hooseeyaa. Akhyaarta waxaan xushmad idin ka codsanayaa viewska inaad kor u qaadaan, sheerta ku badiya. aad iyo aad ayay u mahadsantihiin. Salaamu calaykum.